Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Tixi Technology. Maanta halkan waxaynu kaga shaqayn doonaa su'aashii saddexaad ee aynu halkan ku wadaagnay page-ka Tixi Technology oo arday badan ay codsadeen in laga shaqeeyo qaabka su'aasha ay u dhacayso amba jawaabta qaabka looga shaqeynayo su'aasha. Iyadoo ay jiraan qof ku guuleystay su'aashaas. Haddana maadaama codsiga ardaydu badan yihiin waxaan jeclaysanay inaanu idin soo duubno sida looga shaqeynayo si aynu uga faa'iideysano dhammaantiinba. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa dadka isku dayay dhammaantoodba dadka ku saxay ee laga horeeyay ee laga guuleystay intaba waa ku mahadsantihiin sidaad ugu dadaasheen. Intaynaan bilaabin casharka waxaan xasuusin lahaa haddaad doonayso inaad ka mid noqoto qofka jawaabta hela saxda ah sidoo kalena guuleystaa noqda shuruudaha dhammaystir sheerta like-ta booqashada page-ka intaa markaad soo samaysid ayaa waxa weeyaan aad ka mid noqon kartaa. haddii si aanad shuruudaha qaar ka mid ah dhammaystirin qof dhammaystiray shuruudaha ayaa ka guuleysan kara. aynu bilowno su'aashu waxay ahayd 19 qof baa xaflad ku kulmay midba midka kale ayuu gacan qaad u sameeyay imsa gacan qaad baa halkaas ka dhacay ama xafladda lagu sameeyay. marka koowaad aynu niraahno si aynu khaladka uga saarno meesha haddaynu oran lahayn maadaama 19 qof yihiin 19 kuba ay gacan qaadeen waa 19 lagu dhuftay 19 su'aashaasi waa qalad ma noqonayso. mid aynu xasuusnaano mar kasta oo aad salaan sameynaysid adigu kuma jirtid haddana qofka kale markuu sameynayo isagu kuma jiro marka taa macnaheedu waxa laga doonaanayaa in soo noqnoqosho meesha timaado oo qof intaas oo jeer la tiriyo. markaynu ka hadlayna gacan qaadka waxa assumption inaga aan ku jirin markaynu ku jirna xaaladda hadda ay taagnay COVID-19 gacan qaadka waynu yaraysan. aynu soo bilowno su'aasheena 19 qof baa xafladii jooga sidee wax weeyaan imsa gacan qaad baa dhacday aynu soo qaadano table yar kadibna aynu drive gareyno formula aynu kaga shaqeyn karno dhammaan waxyaabaha kale oo dhan. haddaynu soo qaadano n aynu ku soo qaadano oo ah number of people dadka goobta yimi sidoo kale h aynu ku soo qaadano number of handshakes ama inta gacan qaad ee laga sameeyay goobta. aynu soo qaadano haddaynu hal qof nahay imsa gacan qaad baynu sameyn karnaa dee waba keligeen ba cidna gacan qaad lama sameyn karno waa eber marka. talabaad haddaynu laba qof nahay imsa gacan qaad baynu sameyn karnaa waa kan aynu soo qaadano qofkii koowaad waa kan qofkii labaadna waa kan gacan qaad bay sameeyeen waa hal gacan qaad. saddex qof haddii yihiin ka war saddexdii qof waa kan midna waa kan imsa gacan qaad bay sameeyeen kaas gacan qaad buu sameeyay kaasina kaasuu gacan qaaday kana kan buu gacan qaaday that means dhammaantood way gacan qaadeen qof waliba qofkii kale uu gacan qaaday marka imsa noqonayaan 1 2 3 saddex gacan qaad baa ka dhacay goobta. hadduu afar yahay afar qof aynu soo qaadano qofkii koowaad qofkii labaad qofkii saddexaad qofkii afraad. haddii kani kan gacan qaado kanina kan gacan qaado kana kan gacan qaado kana kan gacan qaado maxaa haray kaasi inuu ka gacan qaado kaasina inuu ka gacan qaado imse weeyaan marka 1 2 3 4 5 6 gacan qaad baa ka dhacday meesha qof waliba qofkii kale uu gacan qaaday marka isaga laga reebo mar walba qofkii. haddaynu soo socodsiino iniraahno 5 qof imse gacan qaad baa ka dhacaya shantii qof waxay noqonayaan 1 2 3 4 5 shantii gacdood kaas gacan qaaday mar kale kan buu gacan qaaday kana kan buu gacan qaaday kana kan buu gacan qaaday kana kan buu gacan qaaday hadduu kaasina ka gacan qaado kaasina ka gacan qaado kaasina ka gacan qaado kaasina ka gacan qaado imsa gacan qaad weeyaan markaynu tirino shaxda startaasi waa 5 wareega guudna 1 2 3 4 5 isna waa 5 suuqay maxay noqonaysaa 10 bay noqotay. marka 19 keen halka n number of people dadka ku kulmay aynu socodsiino 19 aynu gaadhno way nagu fara badanaysaa. sidoo kale waxa laga yaabaa 19 number ka fara badan inaynu sameeyno maxaynu sameynaynaa aynu soo qaadano difference-kooda labadoodan kala duwistooda amba kala duwanaanshahooda iyo inta u dhaxaysa aynu soo qaadano haddaynu dhahno labadan kala go eber iyo hal kala go waxa difference-kooda noqonaya maxay wuxuu noqonayaa hal buu noqonayaa labadan kala go waa 2 labadan kala go waa 3 labadan kala go waa 4 maxaa halka inooga muuqda serious tirada inay linear tahay baa halka inooga muuqata
oo israacaysa amba si isku mid ah ay u kordhiso 1 2 3 4 5 6 7 8 ay soo soconayso way inagoo ka faa'iideysanayna markaas linear kamba faa'iido halka ay noga soo baxday inagoo ka faa'iideysanayna miyaynan oran karin halkan waxa aynu aragnaa mar walba inuu toos u socdo haye halkan laba arrimood oo joogta baynu haynaa number of people si isku mid ah bay u kordhayaan 6 bay halkaas noqonaysaa 7 bay noqonaysaa 8 bay noqonaysaa 9 bay noqonaysaa saas u soconaysaa way markaynu halka marayno halkan sidii si laag si isku mid u kordhayaa waxa noqonaysaa 5 6 7 saas u kordhaysa halkan maxaynu ku soo saaraynaa isu geynta shay labada dhinac 5 iyo 10 isu geey waa 5 iyo 10 5 iyo 10 iyo 6 isu geey waa 21 21 7 geey 8 sidaa waan ku socodsiin karnaa oo number of handshakes ku halka way nooga soo baxayaan inagoo sidaa wadna halka markaynu ka gaadhno 9 iyo 10 number of handshakes ka halka aynu ku haynaa waa tii saxda ahayd ee jawaabtii saxda ahayd ee haynin qaab kale nooga shaqeyn karnaa sidana way badanaysaa sheekh waxa laga yaabaa tiradeedu inay 100 noqoto in 200 noqoto waan ku daalaynaa maxaan sameeynaa formuladan baan isticmaalnaa way aynu soo qaadano h aynu soo qaadano number of handshakes amba inta gacan qaad ee dhacday waxaan ku helaynaa inta gacan qaad ee la sameeyay number of people dadka goobta jooga oo lagu dhuftay number of people laga jaray hal mar walba adigu iska jar oo loo qaybiyay laba laabkiina waa la diiday waayahay aynu soo qaadana 19 qof baa leen siiyay oo xafladda jooga maxaan sameeynaa inta aynu ku bedelo h waxay la mid tahay 19 lagu dhuftay 19 laga jaray hal oo loo qaybiyay laba way h maxay la mid tahay h waxay la mid tahay 19 lagu dhuftay 18 19 laga jaray hal oo loo qaybiyay laba intaas waxay la mid tahay way labadan markaan isku dhufano maxaa soo baxaya markaa 19 lagu dhuftay 18 labana loo qaybiyay aynu soo qaadano way labadan isku dhufo waa 340 iyo laba loo qaybiyay laba labada inta markaan isku qaybino waxa soo baxaya 171 oo ah number of handshakes way markaan u qaybino 340 iyo laba aynu laba u qaybino waxa soo baxaya 171 171 kaas waa maxay waa h10 intaas waxa inoo leeg h oo aynu qaadanay maxay number of handshakes inta gacmood inta salaaqaad aynu sameynay haddaba si aynu aragnay inaad fahantay aynu sameeyno tusaale labaad way haddaad fahantay sidaynu adeegsanay formulada sidoo kale aanad ugu mashquulin table-kan aynu sameynay maadaama marka qaar ay badan karto tiradu bal su'aashan aynu ka shaqeyno qalinkii buug soo qaado inaad fahantay formuladii way su'aasha koobaad waxaan ku yiri 7 qof xaflad ku kulmay gacan qaad bay sameeyeen imisa gacan qaad baa goobtii ka dhashay su'aasha labaadna waxa weeyaan 6 qof xafladda ku kulmay gacan qaad baa la sameeyay midba kale imisa ka dhashay way aynu ka shaqeynay si degdeg ah waxaanu dhacaan soo qaadano h oo ah number of handshakes-ka inay noo leeg tahay number of people ka goobta jooga oo lagu dhuftay number of people oo laga jaray hal oo loo qaybiyay laba way aynu substitute ku sameeynayno aynu ku bedelno h10 ni aba number of handshakes ku waxaynu leeyihiin n aynu ku bedelno 7 way 7 ku bedel oo lagu dhuftay intaan 7 ku bedel laga jaray hal oo loo qaybiyay laba waxaan soo noqnoqoshadii midiyeen way kala jar labada halka maxaa ku soo haray 7 times markay ka galgano 6 oo loo qaybiyay laba inta markaynu qaybino maxaa soo baxay labadan isku dhufo 40 iyo laba loo qaybiyay laba maxaa soo baxay 21 gacan qaad baa halka ka dhacay su'aasha labaad ee 6ka adigaan ku daayay هذا كسر شغلين دون هذه أدوات ما سنتي في سؤاله أمراض الشاشة ضد الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.